sababaha ugu muhiimsan ee aan u cuskaday inaan fikrad cilad la ka bixiyo warbixinta maaliyadeed ee xafiiska xisaabiyaha guud u soo gudbiyo xafiiska hantidhowrka guud ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxaa ka mid ah kow dowladda federaalka Soomaaliya ayaa laba heshiis oo dheef wadaag ah la gashay labada shirkadood ee kala ah Fafori LLC oo maamusha garoonka caalamiga ah ee Aadan Cadde International Airport iyo Albayrak oo maamusha dekedda Xamar haddaba si waafaqsan qodobka 12.2 xarfaha A iyo B ee qandaraaska dheef wadaaga ee dowladda federaalka Soomaaliya ay la gashay shirkadda Fafori LLC ayaa dhigaya in adeeg bixiyuhu oo loola jeedo Fafori uu u soo gudbiyo dowladda warbixin soo martay baaris hanti dhowr madax bannaan ugu dambeyn muddo 90 maalmood ah kadib dhamaadka sanad maaliyadeed walba sidoo kale qodobka 11.2 farqadda 11.2.3 ee heshiiska dheef wadaaga ee dowladda Soomaaliya la gashay shirkadda Albayrak ayaa dhigaya in maamulka shirkaddu oo loola jeedo shirkadda Albayrak uu xisaabiyaha guud ee dowladda federaalka Soomaaliya u soo gudbiyo warbixin soo martay baaris hanti dhowr madax bannaan 4 bil gudahood marka uu dhamaado sanad qandaraaseed walba si waafaqsan heshiisyada dheef wadaaga ee dowladda federaalka Soomaaliya kula jirto shirkadaha Fafori LLC iyo Albayrak waxa ay dowladdu xaq u leedahay inay hesho 25% dakhliga ay qabato shirkadda Fafori LLC iyo 62.17 dakhliga ay qabato shirkadda Albayrak hase ahaatee sida uu xaqiijiyo xafiiska xisaabiyaha guud ee dowladda labada shirkadood midoodna lama wadaagin warbixinadooda maaliyadeed oo soo maray baaris hanti dhowr oo madax bannaan si loo cadeeyo loona ogaado dhab ahaan cadadka saamiga lacageed ee dowladda federaalka Soomaaliya ee yeelanayso sidaas darteed maadaama shirkadaha Albayrak iyo Fafori ay jabiyeen kuna xadgudbeen heshiiska dheef wadaaga ah ee ay kula jiraan dowladda Soomaaliya isla markaana aysan u soo gudbin xafiiska xisaabiyaha guud warbixin maaliyadeed soo martay baaris hanti dhowr madax bannaan ugu dambeyn muddada ku cad qandaraasyada kadib dhamaadka sanad maaliyadeed walba sidaas awgeed xafiiska hanti dhowrka guud uma suuro gelin inuu si madax bannaan u xaqiijiyo in khidmadda dheef wadaaga ah oo dhan 34,261,371 dollar ay tahay mid si dhab ah loo xisaabiyey loona hanti dhowray marka la fiiriyo cadadka dakhliga ay labada shirkadood qabteen iyo saamiga dheef wadaaga ah ee dowladda Soomaaliya uga soo aadaya dakhligaas maadaama ay labadooduba si joogto ah u jabinayeen uguna xadgudbayeen heshiisyada ay kula jiraan dowladda Soomaaliya dakhli ay qabteen 3 safaaradood qunsuliyad guud iyo 2 hay-adood ayaa lagu isticmaalay isla goobtii lagu qabtay ka hor inta aan lagu shubin qasnada dhexe ee dowladda sidoo kalena aan lagu muujin warbixin maaliyadeedka uu soo gudbiyo xafiiska xisaabiyaha guud